السلام عليكم دمان أصحاب تعليم ميديا. waxaan ku soo qaadan doonaa muuqaalkeen qisadii labadii rag ee saaxiibada ahaa ee loogu magac daray ayaa khaldan. Haddaba daawad si fiican ula soco labada nin oo keebaa khaldan bal u fiirso. Labada nin waxaa la kala odhan jiray Saciid iyo Khalid, waxayna go'aansadeen in ay dhoofaan si ay u soo shaqaystaan lacag. Laakiin Khalid gabadh ayuu jeclaa, markaa muun haysan kharash uu ku guursaday gabadhaas. Haddaba way israaceen labadii nin wayna dhoofeen waddanada Yurubta, wayna soo shaqaysteen labadooduba lacag ku filan. Haddaba Khalid ayaa waxa uu weydiiyey Saciid, wuxuuna ku yidhi saaxiib, maxaad ku fali doontaa lacagtan? Saciid ayaa ugu jawaabay, ma aqaan saaxiib, laakiinse insha Allah mashruuc umaan bilaabi doonaa. laakiinse Khalid ayaa isagoo dhoola caddaynaya ugu jawaabay, saaxiib anigu waxaan guursanayaa gabadhii aan jeclaa. Kadibna way kala socdeen. Saciid oo sii socda dariiqa ayaa wuxuu arkay gabadh ay islaynayaan nin tukaanla ah. Markaas ayuu dhexdhexaadiyey, arrintiina uu xalliyey. laakiinse waxaa dhacay inuu Saciid u jeclaaday gabadhaasi, waxaana ku heshiiyeen in ay isguursadaan. Kadib Saciid waxa uu wacay saaxiibkiis Khalid ee wuxuu u sheegay warkaas farxadda badan. laakiinse Khalid aad ayuu uga farxay arrintaas. adduunyadu waa wareegto. Khalid ayaa la soo hadlay saaxiibkii, wuxuuna u sheegay in ay dhimatay gabadhii saaxiibadii ahayd ee uu jeclaa, taasi oo aad uga naxay Saciid. laakiinse carooskii Saciid waxaaba ka hadhay toddobaad, wuxuuna ka codsaday Saciid saaxiibkii inuu joojiyo carooskiisa. laakiinse Khalid ayaa arrintan ka diiday, sidii ayuuna ku dhacay carooskaas. laakiinse Khalid muuna imanin carooskii saaxiibkii. markii la weydiinay wuxuu ugu jawaabay inuu ku maqnaa dhoof. muddo kadib waxa uu noqday Saciid nin lacag badan oo aad u naxariista masaakiintana caawiya. haddaba 5 sano kadib waxaa soo hor istaagay albaabka Saciid nin miskiin ah oo aad iyo aad u liita. laakiinse waxaa diiday gaardiyaankii ilaalinayay ayaa diiday inuu soo daayo, balse wuxuu u sheegay ninkii miskiinka ahaa inuu yahay Saciid saaxiibkiisii hore. markii loo sheegay Saciid arrintii, Saciid ayaa diiday oo wuxuu yidhi war ninka meesha ka eri, taasi oo aad iyo aad uga xumaaday Khalid saaxiibkii oo jeclaa oo maanta albaabka ka celinaya. Khalid wuxuu fadhiistay meel cidlaa isaga oo fikiraya, waxaana u yimiday oday duqa oo xambaarsan shadad weyn. wuxuuna ka codsaday inuu u sii ilaaliyo shadadaas, kadibna uu siin doono lacag. wuxuuna ku yidhi haddii ha furin ama ha u dhowaanin, xataa haddii aan kaa raaga mooyaane. muddo yar kadib waxaa u timiday islaantii ayaa weydiisoo ku tiri shadada dhagaale. wuxuuna u sheegay shadada inuu leeyahay odaygaasna uu u sheegay in uuna shadadaas farala dilin haddii uu in badan maqnaado mooyaane. muddo yar kadib marka ay meesha ku raageen, islaantii ayaa ku qancisay Khalid in uu furo shadadan, waayo odaygii wuu raagay. kadib shadadii ayay fureen. shadadii waxay ugu tegeen lacag aad iyo aad u fara badan iyo dahab. islaantii ayaa tiri aniga ayaa ku qanciyay shadada inaad furtid, lacagta nus inaan qaataan doonaya, waan kala qaybsanaynaa. Khalid arrintii wuu yeelay, lacagtii way kala qaybsadeen. islaantii ayaa ku tiri anigu lacagta waxaan ku fala ma haye ama ma aqaane, waxaan rabaa in aan gabadh aan dhalay inaan ku dhiso oo lacagtina aad ugula qaadato. Khalid ayaa arrintii ka yeelay, wayna isa soo raaceen. kadib Khalid carooskii ayuu isku diyaariyey. Khalid maanta waxa uu wacay saaxiibkiis oo uu la hadlay Saciid oo wuxuu yidhi saaxiibo ka soo qayb gal carooskayga. carooskii waxaa ka soo qayb galay Saciid. markuu carooska yimiday ayuu yidhi, Khalid baa kacay oo hadlay, wuxuu yidhi waxbaan idiin sheegayaa shicibow, ninkan saaxiibkaya ee Saciid la yidhaahdo waa nin aan saaxiiba ahayn. gabadh aan jeclaa ayuu jeclaaday. kadib gabadhii ayaan uga daadegay oo isaga ayaan u daayey. saaxiibkeena markii aan miskiin noqday aniga uu iga baxsaday oo uu cileeyey. albaabkiisa ayaan u tegey uga celiyey. Saciid ayaa soo kacay oo wuxuu yidhi haddaba anaa hadlaya iminkee ani ha la i dhegeysto. wuxuu yidhi maalintii horta adood khaldanaydoo gabadha inaad jeceshahay od ma ii sheegtid waan ku dayn lahaa. haddaba ka wareeg taasoo haddii aan kuu sheego maalintii aad albaabkiga soo qarqaraacday buu yidhi meel baan kaa soo arkay
adoo saaw cawlan inaan ku arkano waa nacay sidaa darteed ayaan kuu soo celiyey balse odaygii kuu yimiday ee shidada weyne lacagtii sitay aabbahay ayuu ahaa lacagtan anaa soo dhiibay islaantay kuu timiday ee kugu qancisay in aad furtid shidadana hooyaday ayay ahayd gabadha aad caawi guursanaysidna waa walaashay haddaba labada nin qisadii intaa ay ku dhammaatay laakiinse labada nin ama labada rag Siciid iyo Khaalid kiibaa khaldan waxaan rabaa asxaabay inaad commentiga aad nagu soo qortaan labada